saddex laamood oo banka Barclays Bank uu ku leeyahay magaalada Nairobi ayaa la sheegay in lacag laga xaday. lacagahaas waxa laga xaday mashiinada darbiga lagu dhajiyo lacagaha lagala baxo ATM loo yaqaano. lacagtaas ayaa xadad ahaan gaaraysa 11 milyan oo lacagta wadankan Kenya. wariyaha telefishinka RTN arrimaha Kenya Cabdi Axmed ayaa faahfaahinay. ciidanka booliska ee dalkani ayaa waxay ku howlan yihiin baaritaano ku saabsan malaayiin lacag ah oo laga xaday saddex laamo oo kala duwan uu leeyahay bangiga caalamiga ee Barclays magaalada Nairobi. wararku waxay sheegayaan lacag dhan 11.5 milyan oo shilinka Kenya in farsamo casri ah loogala baxay mashiinada lacagaha darbiga loogala baxo oo loo yaqaano ATM machines. dhacan ayaa lagu fuliyay muddo 48 saacadood gudaheed. xatooyada ugu horeysay ayaa ka dhacday laanta bangiga uu ku leeyahay isbitaalka ugu weyn magaalada Nairobi oo loo yaqaano Kenyatta Hospital, halkaasi oo dad aan la garanayn kala baxeen 4.3 milyan oo shilinka Kenya. ninka ilaalada ka ahaa mashiinka lacagta lagala baxay ayaa sheegay in cilad ay ka jirtay mashiinka, waxaana war laga helay maqnaashaha lacagta sabtidii xigtay oo bangigu u diray halkaasi koox farsamo yaqaana. xatooyada labaad ayaa iyadana ka dhacday jidka Mutindwa oo ku yaalo xaafadda Kamukunji ee magaalada Nairobi, oyana mashiinta lagala baxay 7 milyan oo shilinka Kenya sabtidii aan soo dhaafnay. ciidamada ammaanka ayaa ku mashquulsan in dib u eegis lagu sameeyo kaamirada wax duubto ee CCTV kaamirahaas si macluumaad dheeri ah loo helo. dhaca saddexaad ayaa ka dhacay isbitaalka Mata oo ku yaalo xaafadda South B, halkaasi oo iyadana lagala baxay mashiinka Barclays lacag dhan 1 milyan. ciidanka booliska ayaa sheegay in kaamirada CCTV-ga oo ku yaalo goobtaasi la mariyay saliidda Vaseline si loo bedelo muuqaalka kaamiraha. bangiga Barclays ayaa dhawaanahan la kulmay fadeexado isxigxigo markii ay ciidamada boolisku qabteen lacago been abuur ah oo bangiga tiilay.